بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وسامسونج تكنولوجي يا معلن سيد وبرشادي باوربوينتيga qaybta ugu dambeysay package-keeni computer-ka markii iyo section-ka ugu dambeeyay qaybta ugu dambeysay qaybtana waxaan ku arki doonaa powerpoint-ga tusaale waxbaan rabaa inaan soo jeediyo presentation marka presentation-kaas waxaan rabaa yacni inaan ku macnaha ku jumeysto amba ku yacni ku registeraysto time waqti marka waqtigaas anigoona isticmaalin oo yacni gudbin waxaan rabaa markaasi automatic inuu slide kaleeto automatically ugu gudbo marka waxaan ku set up gareeyaa marka waxaan ku xiraha waqti marka waxaan leeyahay slide koowaad tusaale slide kood imisaan sharaxi karaa 5 minutes aan sharaxi karaa marka waxaan leeyahay 5 minutes after 5 minutes slide kaleeto gudub after 5 minutes slide gudub marka 5 minutes ka inta ii socoto marka waxaan rabaa inaan ku sharaxo slide-kiga koowaad marka si adigoona oo riixinba tusaale projector-ka waa taqaanaa projector-ka ku shidan adayna stage-ka joogta masraxa waxbaa sharaxaysa marka inaan laptop-kii waxaan diidaa inaan laptop-ka inta imaado hadda waa la casriyey remote control jiro remote-kaasa ka access gareysa laakiin tusaale remote-na ma haysto laptop-kana waa iga durugsan yahay waxbaan sharaxaa marka waxaan diidaa marka inaan laptop-ka inta imaado mar kastaba click inta siiyo gudbisto click inta soo gudbisto waxaan rabaa marka haddii aan qof profession ahay oo time-kana aan ilaali karo inaan ku sharaxo powerpoint-gaas anigoona yacni gacmihiisa saaran yahay oo yacni masraxa iska taagan waa waxbaa sharaxa automatically asaa isku gudbiyaya marka asaa isku gudbinaya waqtiga ku jumeysaa waqti markaa ku jumeysto waqtigaas yacni automatic slide-kaas slide kaleeto automatic isu gudbiya marka waxaas maxaa laga wadaa saan wada ogsoon yihiinbo design-ka samaysanay waxbaa ku qoranay wixii aan rabnaa inaan sii jeedinaan rabnaa tusaale marka inta fiirin halkan meeshaan horta on mouse keligii ku qoran tahay haddaad tig saartid bimacnaa automatic mouse gudbiyayo inaan markaas mouse kelig ku sii saabaan laakiin maanta mouse-ka ma rabo wax kaleeto ku duwan raba meeshaan time ku qoran tahay fiirin time-kan button-kan hoose waa 3 second waaye marka 2 second aa ka dhigi kartaa marka waxaan ka leeyahay 4 second oo kaleeta iga dhig minute aa ka dhigi kartaa daartid 5 minutes 6 minutes 10 minutes wax ratida macnaha ku xiri kartaa aniga laakiin 4 second maadaama dee 5 minutes daa ku xirta dee waqtiga naga halaabayo marka tusaalaan kaga rabnaa marka macnaa marka inta 4 second igugu xir keligoon mouse meesha ay taamay macnaha waxaa laga wadaa slide-kan koowaad ilaa iyo 4 second oo hawada ku jiraa 4 second markii la gaaro automatic labaad isu gudbaa anigoona meelba aan taabanin computer-ka automatic isku shaqeynayo wuxuu gudbaa haddana slide-ka saddexaad 4 second soo hawada ku jiro slide kale tuu gudbaa marka 4 second ku jumeystay no matter kan duration-ka qolata project-ga dhan imisa ugu talagashay 5 minutes doya 5 minutes 10 minutes doya apply to only okay start garay bismillah waxaa la rabaa marka automatic inuu isku shaqeeyo waa ka cashirkan 4 second kadib page kaleeta la rabaa automatic inuu gudbo waa ka 4 second kadib haddana second page la rabaa automatic inuu gudbo waxba meel boo mataago aniga just sa u daawanaysid bisa u daawanaya automatically asaas ku gudbiyahay marka adiga waxaa ku jumeysataa imisa sharixi kartaa marka page-kan 4 second ma sharixi kartaa ha ku jumeyso okay 4 minutes ma sharixi kartaa ku jumeyso 1 hour ma sharaxe it depends on adiga
requirementiga ay ku xiran tahay intaas inaan isla fahno ma leha wanaga dhamaada 4 second aan ku jumaysan waayn anaga marka waxaan aad iyo aad u rajeynaa inaan powerpoint soo kacsan kartid slide-kana ku qori kartid title-ka oo wax xalaal waxa rabtid au bixi kartid sida Soomaaliya inaan ka sheekeeyo markii aan rabo marka intana waxaan ku dhahay subtitle-ka oo Soomaaliya hoos ima hayaan sida gobolada Soomaaliya hoos ima hayaan sida Mogadisho Puntland Jubbaland Galmudug Hirshabelle iyo wixii lamid ah macnaha saasarta marka inaa u sheekayso mid kastaba yani waxa waaye koonfur galbeed mid kastaba marka waxaa la rabaa marka inaa goonis state kasta oo waxa uu yahay waxa uu soo saaro populationkiisa cidda maamusho si dowladda u shaqeyso yani waxaa rabtaa inaad ka jeediso dowlad presentation rabtaa inaad ka jeediso marka mid kastaba slide gooniya u sameysaysaa no maanta inuu 5 slide noqdo 10 slide doo noqdo dhib ma lah laakiin in slidadaas inaa qoratida laga rabaa oo documenti dhammaystiran aad ka diyaarisid sida 100 page oo kaleeta ku noqde 100kaas marka waxaa u soo sameysataa design u soo sameyso design ka rabtid saar kii hadda ka bedelina kana ka saarina ya si indirect u dul maraya design kan saaro design ka marka saaratid waxaa sameysataa tansiisha kaga tag kay ku cajib geliye kana cajib geliye tusaale mid ka saaro mid ka saaratid apply to all markastaba ha hilmaamin siduu kugu qaato okay time-ka ku buuxso oo wax ku sharixi kartid marka waxaas oo dhan jugjug markay ku yihiin balay tijaabi waa ka 4 second kana uu buuxsan yahay after 4 second page cusba ay soo baxaayo easy way marka aad u fudud yahay marka adinkana waxaa aad u rajeynaa inaa macnaha fahanteen abaraatigi doontiin aad ku baashaali doontiin marka ku mahadsantihiin marka general advice marka talo guud waxa waaye computerka qofkii perfect inuu ku noqdo oo rabo yacni waxa la hayo waxa akhrisan ba theory way ku musaacadeysaa laakiin waxaa ka awood badan waxa la hayo practicalka marka practicalka sida uu fiican yahay ayaa fahamkaaga amba isticmaalkaaga computerka ku fiicnaa doona qofka computerka isticmaal badan yahay uu firfircoonaha uu faham fiican yahay marka ha ka caajisin adiga tusaale markaan ku siiyo yacni laba tusaale soo qaado luqadeena afka waaye markaan baranayna iskuul muu gelin because of maalin kastaba sida nool kordhahayo waxa waaye maamada iyo ciyaalka ka baranay okay sidaas lamida mobilka markii aad soo gadanayso mobilka markuu kugu cusbaa maalinta koowaad waa dhoodhooris waa ilaalinaysa meel ka isticmaasho mataqayn meeshan haddaa taabatid yacni ama ka halaba is dhaysay okay marka laakiin haddeertan mobilka isticmaalaysid aad u sii jeedina wax ka qoraysaa kala gudbinaysaa farqi u dhexeeya maxaa waaye maalinta koowaad isticmaalkiisa iyo maanta khatar ah ku tahay isticmaalkiisa waa practical waaye marka tusaale marka de mobilkana technology ka tirsan yahay computerkana technology ka tirsan yahay isku mid waaye marka isticmaalka computerka waxa ku musaacidi karo awoodada inta la agtahay practicalka marka intaas inaan isla fahno malayna subscribe si gmail-kaaga noogu soo qor waxaan kusii doonaa dokumentiyada iyo cashiraadkii oo dhammaystiran kuu soo diri doonaa gmail-ka waa diyaarinaynaa iyadoo isku wada xiran aad diyaarinaynaa oo kuu soo diraynaa su-aalaha jiri doono ayagana oo macnaha challenge ah documentiisa la isku diri doonaa sida wordka oo kaleeta markii wax lagu qoraayo excelka oo kaleeta yacni
waxbaa isku diri doonaa ayagana oo challenge ah, qofba qofka kale qofkii fahmi iyo qofka kaana fahmin wax allaale wixii caqabada kugu adkaado iyadoo su-aal ah oo fudud oo la fahmi karo soo dir, faahfaahin fiicanaa kaa siiyeynaa, wax dheeraada hadday jiraan noo dir, waa kaala shaqeeyeynaa. haddii ganacsata tahay xisaabaadka waa kaa musaacdeynaa, haddaa arday tahay waxbarasha waa kaa musaacdeynaa, haddii bilaaw tahay oo base-ka hoose aa rabtid talooyin guud haddaa rabtid annaga available aa kuu nahnay. Soomaali walaalaha isxilqaamay oo adiga cilmigaaga inay kor u kordhiyaan ugu talagalay ayaanu nahnay. dadka iyo wadanka wuxuu nagu leeyahay waajibkiina kaa gudahinaa, wax annaga aan kaa rabno ma jirto. inaa intaas nala fahantaa aad iyo aad u rajeynaa. wixii xog ah amba talaa haddayna qataa mahad celinne commentiga noogu soo reebeysaan. aad baa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.